waxaan dhawaaqaba tolkaydheega u yeelayey waxaan dhawaaqaba tolkaydheega u yeelayey dhulbahanta israacyadoo laysku soo dhiliyey war dhunidiido xornimo laysu dhaarsayey kuwo cararayana maanaan ahayn kuwo magaranaysaay halkan u soo raaxad tegey u soo natasho tegey maanaan ahayn waxaannu ballan ku qaadnay in gobolkii sool iyo magaalada laascaanood oo xora mooye annaan ku noqon magaalada haddii alla idmo anigu waxaan ka tirsanaa muddo sannad gaadhaysa waxaan arkay dhacdooyin fara badan waxaan arkay mushkilado fara badan waxaan arkay waxyaabo fara badan oo qalbigayga iyo maskaxdayda iyo damiirka bani'aadantinimada nool uusan yeelaynin anigoo taas iigu jirto ayaa waxaan arkay wax wixii ka sii daranba raalli ayaan ka noqon waayey inaan dadkaygii dhiiggiisii sii cuno aragtidiinnaannu idinku soo dhowaynay damiirkiinna weli nool baannu idinku soo dhowaynay haddaad diiddaan waxaad ogaataan intaynay door xabadda lagu bilaabin inaynu ka horraysiinanno ninka eesana u shaqaynayo horgolayaasha insha allah nooga timi gobolka sool oo uu hoggaaminayo injineer maxamed aadan oo ka mid ah mas-uuliyiinta hoggaamin doona maamulka iyo jamhadda SSC iyo isuduwihii ciyaaraha maxamuud askar baan ku soo dhaweynaynaa duleedka magaalada Buuhoodle waxaan dhawaaqaba tolkaydheega u yeelayey waxaan dhawaaqaba tolkaydheega u yeelayey dhulbahanta israacyadoo laysku soo dhiliyey war dhunidiido xornimo laysu dhaarsayey sida arxandarrada ah ee loogu laynaya dadkaygii magaalada laascaanood sidaan xalay ku dhawaaqay waxaan iska casilay xilkii aan ka hayay maamulka Soomaaliland xilkaasoo ahaa isdu'a wasaaradda gaadiidka ee gobolkan iyagu u yaqaanaan Buuhoodle inagu saaynu naqaano gobolkan Caymeed waxaan la dareenahay hooyada wiilkeedu ku dhintay magaalada laascaanood waxaan la dareenahay wiilka ku waayay aabihii magaalada laascaanood waxaan la dareenahay culimada lagu laayay magaalada laascaanood buda iyo biya loo kala baxaya bura iyo biya ma oran jireen buur iyo biya loo kala baxaya inaga iyo isaaq maanta in badan baynu isku dhowranay dayac aragti xumo hoggaan xumo nidaam xumo maanta waa kala baxaynaa waxaynu u kala baxaynaa sida iyagu inoo kala saareen annaguna haddeerto waxaan kaga nimid gobolka Sool waxaanu soo maray Dumco waxaanu soo maray Dharkayn dhul badan baanu soo maray goob baanu soo maray meel annaga ka soo dhaweeyeen ma jirto meel kasta dareenkaas ay qabtaa dadku waxa weeye maanta isku calool baynu nahay dee waxay la tahay kabta un baa dabada inoo ka xidhano maanta kabada furo damba qaadan mayno hadaalan shilin dambe oo door leeyahay cunin mayno ma rabno cunin mayno kii cunayoona iska daa oo yuusan noqon caalafkii kugu dambeeyay iyo ceebtii aad qaadi lahayd assalaamu calaykum cararayana maanaan ahayn kuwo magaranaysaay halkan u soo raaxad tegey u soo natasho tegey maanaan ahayn waxaannu ballan ku qaadnay in gobolkii sool iyo magaalada laascaanood oo xora mooye annaan ku noqon magaalada haddii alla idmo halkankaannu halkan ka galnana aan rajayn doonno in dhammaan dhallinyarada SSC ay nagu dayn doonto iyo magaranaysaay kuwa ku hadhay hadhaadiga ah ee ku hadhay SNM iyo magaranaysaay jabhadda Soomaaliland runtii waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka dhiidhiday oo nala mid ka ahayd ay gabdhuhu qaybta ka ahaayeen ee iska casilay xeelkay u hayeen maamulka Soomaaliland runtii aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa halkankuna halkii buu ka socon doonaa maanta dhulbaanta waa midaysan yahay meel uu joogaba gudo iyo dibadba waxaan rajayn doonaa in guusha bilaabatay maanta ay noqon doonto tii gobolka Sool iyo deegaanadeennaba aynu gacanteena kula soo noqon lahayn haddii alla idmo waxaan ka tirsanaa muddo sannad gaadhaysa waxaan arkay dhacdooyin fara badan waxaan arkay mushkilado fara badan waxaan arkay waxyaabo fara badan oo qalbigayga iyo maskaxdayda iyo damiirka bani'aadantinimada nool uusan yeelaynin anigoo taas iigu jirto ayaa waxaan arkay wax wixii ka sii daranba raalli ayaan ka noqon waayey inaan dadkaygii dhiiggiisii sii cuno inaan ilmahaygii biyihiisii cuno ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay iga cafiyo aakhiriya adduun baynu ilaahay iga cafiyo shacabka dhulbahante meel kastay ku nool yihiin iyo deegaanada SSC-ba waynu guulaysan doonnaa waxaan rajaynayaa inaad dhibaatada iyo mushkiladda iyo waxa aanu ku hayn jirnay inaad naga cafisaan waxaan kaloo ku darayaa waxaa jira
anigu waan garanayaa aad baan u fahansanahay meesha aynu rabno inaynu qabsanno magaalada Laascaanood waxaa lagu haystaa shilimaan waxaa lagu haystaa $50 waxaa lagu haystaa $100 waxaa lagu haystaa bahdilaad waxaa lagu haystaa karaama darro qofka karaama darrada yeelaya $100 qaadanaya waxaan leeyahay ku haray meesha waa horgalada haraadiga hore baynu horgallo oran jirnay iyagu maanta waa haraadigii marka waxaynu ugu ducaynaynaa in ilaahay ka soo saaro horta meesha in ilaahay maanta ay toobad keenaan u waafajiyo toobadu mar bay leedahay in la aqbalo waxa aan u ordaynaa ma aha irsaaqad markii horeba aan waxaan meesha ka qaadan jiray iyo wax ka badan baan ka qaadan jiray laakiinse qadiyadaydu iyo damiirkaygu marna isma bedelaynin maantana waxaan u taaganahay ma aha inaan xil soo doontay ma aha inaan berita iyaga ku noqonayo oo aan si aniga iyo saaxiibadayda kale iscasiliba ma aha inaan berita ku noqonayno waxa weey waa qadiyadii aad fahansanaydeen reer Buuhoodlow waa qadiyadii aad fahansanaydeen waa qadiyadii inaga dhaxaysay ee aynu muddada dheer u soo halgamaynay waxaan rajaynayaa maanta oo aan ognahay in dhammaan guud ahaan dadka ka soo jeeda ama ku abtirsada deegaanada SSC inay quluubtoodu iyo shucuurtoodu ay maanta midaysan tahay